waddankii Argentina ayaa la holeelay koobkii dunida ee indhaha caalamka oo dhan aadka loogu hayay bishii la soo dhaafay 18 Diseembar oo ah maanta ayaa si rasmi ah ugu guuleystay dalka Argentina koobkii dunida. Argentina ayaa geed dheer iyo geed gaabanba u fooshay helitaanka koobkan. waxay hore ugu soo guuleysatay sanadadii 1978 iyo 1986 iyo haatan oo ay ku guuleysatay 2022. guusha Argentina ayaa ah guul u soo hoyatay qaranka Argentina oo taariikhda kubadda gashay caawa 2022 ee dalka Qatar waxay noqotay mucjiso caalamka oo dhan indhaha aad uga hayay, waxaana soo gabagabowday xiisihii ugu badnaa ama wax la xiiseeyo tan ugu badan adduunka ee ah kubadda cagta oo ay dad badan oo dunida oo dhan ah kala taageersanaayeen. labada xul ee sida weyn u loolamay waa labada dal ee kala ah Faransiiska iyo sidoo kale waddanka Argentina oo ku guuleystay koobka dunida markii saddexaad. Lionel Messi xidigan ayaa noqday xidiga ugu fiican koobka adduunka ee 2022. dhinaca kalena waddanka Faransiiska laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe ayaa isaguna ku guuleystay kabta dahabiga ah isagoo noqday xidigii ugu goolasha badnaa ee goolasha dhaliya intii uu socday koobkan dunida sanadkan 2022. dhinaca kalena dawladda Qatar waxaynu uga mahadnaqaynaa sida quruxda iyo haybadda leh ay u maamustay gebi ahaanba una faafisay diinta Islaamka intii uu socday koobka dunida. dalka Qatar waxa uu baritaaray dadaal walba oo loogu jiray fidinta diinta Islaamka iyo soo jiidashada bulshooyinka yimid waddankaasi Qatar oo ahaa malaayiin qof. dalka Qatar ayaa haatan laga bilaabo waxa uu yahay waddan loo soo dalxiis tagi karo, sidoo kalena dal wax badan laga bartay intii ay joogeen bulshooyin badan oo xataa ay ka mid yihiin dad badan oo reer galbeed ah oo wax badan ka faa'iiday joogitaankoodii waddanka Qatar.